munaasabad lagu xuseeyay maalinta fistula oo ku beegan 23 bisha May ayaa lagu qabtay hotel Rays ee magaalada Boorama waxaana munaasabadaasi ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka dadweyne aad u tiro badan oo rag iyo haween isugu jira waxaana intii munaasabadu ay socotay lagu soo bandhigay ruwaayad ka turjumaysa dhibaatada xanuunka fistulu leeyahay waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay Dr. Saeed Ahmed Walhad oo ka waramay inta ay xanuunka fistula ka daweeyeen Hospitalkan Boorama National Fistula Hospital waxa la furay 2008 bukaanada la sameeyay waa 4164 bukaan bukaanada boqolkiiba 99 waa lagu guuleystay sidoo kale waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye Hospitalkani waa hospital kamid ah hospitaalada wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ku faanto xanuunkan fistulaha waa xanuun cawaaqibkiisu uu keenayo in qofkaasi xanuunkii hayay ka sakow ay la soo darsaan xanuuno kale oo nafsiya waxaan isleeyahay xanuunada wax laga qabto kuwa ugu ajarka iyo xasanaadka badan ayuu soo gelayaa waxa iyaguna halkaas ka hadlay gabadh ku hadlaysay magaca hay'adda Belfishan Leila Xaashi iyo Anisa Cabdi oo ku hadlaysay u qaybsanaha wasaaradda horumarinta caafimaadka xanuunka fistula ee Soomaaliland waxaana had iyo jeer gacan ka geysta hay'adaha UNBA iyo hay'adda Belfishan fistulada maanta waxa weeye waa dhibaato aad ugu dhacda dumarka oo physically iyo mentally ku keenta dhibaato badan UNFPA waxay kala shaqeysaa Boorama National Hospital iskuulada midwiferyga soo saarta Somaliland oo dhan isku furniinka ama obstetric fistula waxa la yiraahdaa waa wax ay keento hooyada marka ay dhalayso okay way jiraan sabab kale laakiin mostly waxa weeyaan hooyadu marka ay dhalayso waxa weeyaan isku furanku wuxuu dhacaa xilliyada ay hooyadu foosha ku raagto ama daayiraan lagu guursado waa xanuun ay dareemaan hooyada ay dhibtu ku dhacday iyo hooyadeed waxa soo raaca aabaheedo inta xoolaha la haysta sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay agaasimaha caafimaadka asaasiga ah ee gobolkan Awdal Mawlid Yusuf Nuur 23ka May 2019 maalinta isku furanka adduunka macnaheedu waxa weeyaan inaan isxasuusino inaan ka war hayno iyo inaan ka qayb qaadano inaan ogaano dhibaatadiisa iyo inaan ogaano halku marayo waxa loo baahan yahay inaga laftigeena mas'uuliyadeena saaran inaynu gudano maxay tahay taasi dadkanu muddo badan bay ka maqnaan bulshada dhexdeeda in loo faasiteed gareeyo inay marxaladoodii caadiga ahayd bulshada dhexdeeda inay ku soo noqdaan waxa isaguna halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka Awdal ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal run ahaantii cudurka fistuluhu waa cudur dumarka dib ku haya asaasaha dhakhtarka Walhad iyo Qaws way ku mahadsan yihiin dadkii ay daweeyeen ee 4000 qof gaarayay waxaan leeyahay ilaahay khayrkooda hayna siiyo